السلام عليكم. maxaa ka dhigay Albert Einstein mid caqli gal ah? Maxay ka samaysneed Albert Einstein maskaxdiisu? intii aanu geeriyoon ka hor Albert Einstein wuxuu weydiistay dhakhtarkii daaweynayay in uusan jirkiisa baaritaan ku samayn. wuxuu rabay Albert Einstein in meydkiisa la gubo markuu dambas uu noqdana si qarsoon in loo kala firdhiyo. sanadka markii uu ahaa 1955 Einstein wuxuu ku dhintay Princeton. khabiir ku xeel dheer arrimaha caafimaadka oo lagu magacaabo Thomas Harvey ayaa loo yeeray si uu baaritaan ugu sameeyo Albert Einstein jirkiisa. laakiin Thomas Harvey wuxuu xaday maskaxdii Einstein wuuna la carray oo wuxuu ku dhex riday quraarado loogu talagalay in lagu keediyo xubnaha jirka bini'aadinka oo dhakhtarka yaalay. Thomas Harvey wuxuu baarayay maskaxda Albert Einstein muddo 40 sano ah. afartan sano kadib Thomas Harvey wuxuu go'aansaday inuu soo xaadiro oo uu yimaado dhakhtarka si uu maskaxda Einstein ugu wareejiyo saynisyahano si ay baaritaan ugu sameeyaan. markay saynisyahanadu ay baaritaan ku sameeyeen maskaxda Albert Einstein way la yaabeen. Einstein maskaxdiisu waxay lahayd 17% neurons dheeraad ah marka la barbar dhigo qofka caadiga ah. taa macnaheedu waxay tahay in lagu daray neurons dheeri ah maskaxda Albert Einstein. taa oo siinaysa Albert Einstein awood maskaxeed oo dheeri ah. daraasaad dheeri ah oo Albert Einstein maskaxdiisa lagu sameeyay ayaa taas muujisay. maskaxda Einstein waxaa ka maqnaa dalool la yiraahdo frontal operculum sababtoo ah xajmiga dhicistiisa ayaa lagu kordhiyey 20%. qaybtan loo yaqaano frontal operculum waxay mas'uul ka tahay xirfadaha xisaabta iyo sawirada maskaxda. natiijadii ka dhalatay awoodiisa in uu maleeyo waxyaabaha maskaxdiisa ku soo dhaca inuu ka falceliyo ayaa kor u kacday. marka waxaan dhihi karnaa marka laga reebo jacaylka uu qabay cilmiga Albert Einstein sidoo kale si aan caadi ahayn ayuu nasiib u yeeshay Albert Einstein.